بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعنا ونكسن داوديال دمانتين بكل سو دواده برنامج كارا oo ku saabsan xafladda qalin jabinta dufcadii toddobaad ee wax ka barata kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Golis ee magaalada Hargeysa caasimadda dalka Soomaaliland oo lagu qabtay Mansour Hotel isla markaana uu ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo xubno door oo kamid ah golahiisa wasiirada iyo mudanayaalka kala tirsan golayaasha qaranka ee guurtida iyo wakiilada iyo axsaabta siyaasadda iyo madax dhaqameedyo culimaa oo diin aqoon-yahano ganacsato iyo haween dhalinyaro rag iyo waliba maamulka macallimiinta iyo ardayda wax ka barata jaamacadda Golis sidaas awgeed ayaa xafladan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaana la iskugu soo dubariday laguna qabtay hoolka ugu weyn ee hoolasha Mansour Hotel ayaa waxay u dhacday sida tan مدن مدحوينه iyo marka sharafta faraha badan ee wasiiradu ka mid yihiin iyo agaasimayaasha waalidka ardayda jaamacadda ka qoljeysay iyo ardayda kale joogta meeyirkii magaalada salaadiinta umaasha iyo marka sharafta aad u fara badan ee inoo timid qalin jabinta qaayaha iyo sharafta leh ee sida wanaagsan loo soo agaasimay aad iyo aad baan jaamacadda anigoo magacii maamulka iyo ardayda iyo waalidkaba ku hadlaya idinku mahadnaqaya waalidka noo timaadeen nagala soo qayb gashay mudane madaxweyne jaamacadda Golis maanta farxado badan oo aad iyo aad u badan ayaa halkan yaala oo si qiimo leh ugu faraxsanahay waxaan kaloo ku faraxsanahay inay nala joogaan Waylandkii iyo Somaliland Business Park-kii laakiin faraxa badan waxa u horeeya horta iyadoo markii uu horeysay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland qalin jabin jaamacadda Golis leedahay oo ka soo qayb galay oo markii marka labaad waxa farxad weyn loo ammaanta mudan madaxweyne adiga oo dadka badankiisu ma oga laakiin aan jecelahay inaan halkan ka cadeeyo maanta in tacab aad ku lahayd jaamacadda oo jaamacadda Golis iyadoo wali aad u dhidibka insha Allah taala ilaahay ugu aasin oo u xididaysan ayuu madaxweynaha iyo marwada koowaadba tacab bay ku lahaayeen tacabkii ay ku lahaayeen ba halka ka soo baxay maanta waa tacab mudan madaxweyne adiga khaas ku ah oo ogtahay maalin baa jaamacaddu u baahatay lacag anigu waan tagin madaxweynaha maan oran waxaan u baahnay laakiin dad jaamacadda la saaxiib ahaa oo xisbinimana aanu saaxiib iyo walaal ku ahayn islaamnimana ku ahayn bini'aadminimana ku ahayn soomaalinimana ku ahayn ayuunbaa u sheegay oo yidhi jaamacaddii waxaasay u baahantay intiina waa loo sheegay madaxweynaha intuu sabdexe guday isagoona madaxweyne ahayn oo gudoomiye xisbiya ayuu noo soo ballamiyey fariin baa ii timi habeennimadii waxaa la yidhi siciidow lacagtaad u baahnayd halkaa ka qaado Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo kuu soo dhigay madaxweyne mu ahay isaga laftiisa ayaaba mucaarad ahaa oo dee magaraysaa
waxaan maanta markaa farxad weyn oo madaxweyne maalintii haddaanu fashalano anna waan kaa baxsanna waxaan odhan lahaa dee habeenkii sabtii dhuxul guday waa taasoo maxamed sida ka dhowmo maanta waxaan ku faraxsannay qalinjabintii runta haddii la doonayo tii lixaad maaha waa tii toddobaad annagaa qaldannay waayo tii berbere ayaan ku tirsanay berberada waa golis waa laga qalinjabiyey halkanay shan ahayd berberaa lix ahayd iminka toddoba inay noqotay tay burcana way soo socotaayo waa kii sideedaad sideeddaasina laga qalinjabiyey farxaddaasi waa farxadaan ku faraxsannay waayo annagoo weliba wax badan aan filayna inaan ka tarray waddanku wuxuu u baahan yahay oo civil engineeringkaasa oo maamulka iyo combyuutarka oo telecommunicationka ah oo anestesiada toddobadaa ku jira toddobadaba dowladda u shaqeeya madaxweyne labaataneeyaha kale ee clinical laboratory bartay intii dowladda wada shaqeeya intaba kaacakuf iyo kor aanu macalinka lacagu helo iyo mar walba ugu lahaado intaasaanu feeriya laadka ka soo saaray laakiin ayaan dhaweyn bay qadimeen waa la qadimay oo waxay qadimeen baxarkii iyo cilmibaaristii way difaaceen khubaro ajnabiyaa timid khubaradii ajnabiga ahaana way wada saxday inay baaskareeyeen oo aan jaamacadda ku jirin marka farxad kale ayay noo tay adigoo qacan ku lahaa maanta waxaan ku faraxsannay oo madaxweyne ah oo aanu horumarka intaa laga gaadhay oonu isu dhigayna inaanu nahay jaamacad qaran waayo waxaanu ku nahay hargeysa ay ka furantay berberay ka furantay burcay ka furantay ceergaabana way noo yeelatay waxay yidhahdeen kaalay ka furan oo diintiinna bara waxaanu nidhi waa naga yara dahay ma qaadi karro afar magaalo burca iyo berberada colaad baabanu kala qabanay waar naga yara dahay way naga diideen waxay yidhaahdeen shareecada loo furo waxaa aqbalay madaxweyne shareecada ceergaabo lagu barto laakiin wasaaradda qaybna aqbalaadda waan ka helay wasiirkii ee tacliimtana waa la sugayna aqbalaaddiisa iyo isna inaan nooleysiino markaa sidaasaa ay farxado fara badan maanta dhibaatankaadu noogu yahay mana jecelin madaxweynaha inaan wakhti badan ka qaadno waayo shaqo qaran buu hayaa wuu inoo yimid ardayda qaar badan baanu is aragnay shanta u horreeya mooye inta kale wasiirada ayaa siinaya laba inan waxaan ku faraxsanay oo madaxweyne kaaga shaqeeya ayaa qalinjabiyey labadaa waxaan jeclay madaxweyne inaad adigu guddoonsiiso shahaadadahooda waxaan intaan ku darayaa oo u mahadnaqayaa World Bank iyo Somaliland Business Fund oo na siiyey lacag aan ku soo iibsanay qalabkii laboratoryga civil engineeringka oo aan furayna dhowaan oo iminka dekedda ayaa dhow ku soo xiranaysa alaabtii oo hargeysa aynu ka samaynayno civil soil analysiskii kii ciidda kii dhagaxa kii birta alaabtii lagu baarayey tayadooda oo dhan waxaa dhisma looga baahanyay laab caalamiya oo moodanana ayaynu furaynaa kaana World Bank iyo Somaliland Business Fund ayaa inoo hirgeliyey insha allahu tacaala madaxweynaha iyo wasiirka howlaha guud baa inoo furi doona muddo bila ama 2 bilood hadday ugu badato daartiina waa lagu sameeyey kaana aad baan ugu faraxsanay waa maalin farxadeed oo madaxweynihii oo sidaa aan idiin sheegay qayb ka ah jaamacadda golis hore umaanan sheegin madaxweyne waana ka xumay inaan maaragtay qofku wuxuu qabtay in laga sheekeeyo maaha laakiin tiise farxaddaa naga keenaysa maaha sidaa daraaddeed ma jecelin in wakhti badan aan qaadano waxaan jecelahay inaynu maaragtay soo dhaweyno oo aan shahaado sharfiyada u horraysiino doctoorada iyo magaranaysa honorary degree-yada aan bixinayno oo ay ugu horreeyo runtii in yar baan ku daraya madaxweynaha maanta halkan wuxuu ku mutaystay 2 shahaadood inaan siino shahaadad cidi kula murmayso oo u qalmaa oo waxa weeye doctor in political science
honorary degree mid kalena waan siinaynaa isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka waa shahaado sharaftaa waxaan ku siinaynaa madaxweynaha darajooyinkii uu bixiyey ee uu siiyey ciidamada qalabka sida darajooyinkaasi saddex madaxweyne oo ka horreeyey ayaa keli waayey inay bixiyaan tallaabo geesinimo ah weeye tallaabo loo baahnaa weeye qarankeenii bay muujisay inaynu qaranna maalmihii mudana madaxweyne aalxuseen biladaha iyo garoomaha waxaan arkay anigoo salaadii hore 6dii kala haya ayaan arkay nin garbuhu casiir oo garo halkaa ku saddex dego waa maalintii labaad baan malaynay oo malaa'igaaga sugaya dabeetana waan muraaqooday waan beerooday waxaan isiri tolo ma qaataa ninkan odaygaa ee meesha sugaya waan u quuri waayey inuu waddankaa gaaro marka halkan jigjiga yar ku taagnaa gaarigii baan hakiyey laakiin shir baan tegayey 6dii arooriniyo markii markaasaan idhi war koley waa nin madaxo baabuur baa u imanayee iskaga tag laakiin waxay ku tusaysaa sidaan u muraaqooday ayaa dadkoo dhan u muraaqooday runtii dadweynahoo dhan in markaa adiga madaxweyne ku-xigeenka iyo wixii ay idinkala shaqeeyey oo dhan laydin siiyo shahaado sharafyo dee wax ka badan baa u qalantaan bilada dahaba u qalantaan runtii laakiin golis bilad dahaba ma karaystee shahaado sharaf uma maanta idin siinaynaa soomaalida laanta kalea laga doonayaa bilada dahaba inay siiyaan madaxweynaha marka waxaan ku soo dhawaynayaa caydaruus in aan maaragtay sheego shahaado honorary degree-yada u horreeya 5 in madaxweynuhu bixiyo iyo shahaado sharafyada hore dabeetana isagana ugu horreysiinayna madaxweynaha caalamkiisuga u horeeyo dalkiina waa ugu shaqaysaa waxaan ugu horsiinaynaa shahaadooyinkaana oo aan ku soo samayno waddanka dibaddiisa oo aan ugu talagalay dadka maanta aan ku shaqayno shahaado sharafka inaanu siino taasina waa shahaado sharafkii waxaan u naago ragasiin aad bay ugaarsanyihiin madaxweyneheenka jamhuuriyadda somalilan iyo madaxweyne ku-xigeenkeennaba ilaahay ka amaanmariyo waxay noo furteen iyo waxay ka tagteen madaxweyne ku-xigeenkeena sidoo kale madaxweyneheenki cabdiraxmaan cabdullahi ismaaciil saylici hawshii kale umaa tahaya madaxweynenkooda laakiin waxay joogo madaxweynihii alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa maasanta madaxweyne waa maasanta waxaa kuxusin doona madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan xinsi xaaji cali waa haleenkii minister ah ayuu wasiirka madaxweyne wasiirka wasaaradda madaxweyne wasiirka wasaaradda madaxweyne markaa ilaahay musaa siiye masterclass-kiisa PhD-na uu qalma sanadkuulada koobaad ee booliska PhD-na uu qaadanaya sharafka intaas PhD-na laga qaadaa ku jiro Ismaaciil Ali Cusmaan public administration isna sidaa xariisii wasiir buu ahaa booliska kusiinaysada oo waxbay u qabtay oo aniga kulmiya waka gudoomiye kulmiya waka wasiir daaqiliha ana kulmiya ugu koristaafici jiray dhulkeeda waa jirnigana waa kulmiye laakiin jaamacaddan Soomaaliland baale kusoo jiraysa
وكان بدأت الورود في الإعلان من الحرفية وعلى شهادة international relations. وأن يكون عشان حياته أدوكا وأن يفعل الاعتراف وأن يشير لها ما يرفع عنها كل وحدة الدولة إلى الحكومة. محمد إبراهيم الصديق اللاوي ما تقول لك هاي وعلى كل العلم هاي من هذا بحر وأن تحت هذا الرسول الكريم لكن أبي يوم ولا أي ولا تعرف على المسلم سماه ولا ما تبني أو مسلم هاي لكن شهادة ولا ولا مسلم أرضية مصطفى رئيسة أيوه توسين ياهي وأيا لعب إسماعيل شكر الإسلام عامل أيام عامل عبد الرحمن أمين عبد الغالب أيوه سعد عبد الرحمن حسين موسى عمر علي حسن محمد بن كامل وزيرك وزارة عاصماتك سليمان عيسى أحمد أو أرضي بدن أو صوفيال يا شيبان استيالي أيوة قدم كبير إن بدن من صوفيال وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها وزيرها والدينتا iyo ardayda dhammaantiin waan idin salaamayaa waxaan leeyahay hambaliyo ilaahay waxaan ka baryayaa in uu idinka dhigo kuwii waxa ay soo barteen ku anfaca dalkooda iyo dadkooda aad baan ugu faraxsanahay in jaamacadda golis ay markii ugu horreysay soo saartay clinical laboratory iyo anesthesia waa laba meelood oo baahi weyni ay naga haysatay waana soo dhaweynayaa waana la wareegay ardaydaas insha allah waxaan kaloo idin sheegaynaa in jaamacadaha dalku hadda ay arday badan soo saaraan qaybta caafimaadka waxaanu ku talagalnay oo imika wadnaa in kriteeriya loo sadgareeyo oo jaamacaddii kriteeriyada buuxin weyda aanay dowladdu aqoonsan gurmada caafimaad ay soo saarto arrintaasi waa arrin aanu ku ilaalinayno dadkeenna waa arrin aanu doonayno in jaamacaduhu dhammaantood ay soo saaraan arday dhakhaatiir nurses iyo bahda caafimaadee kalena waana tira ay soo saaraan marka golis waxay ka mid tahay jaamacadahaas insha allah hadda ka hor waxaa teaching hospital u isticmaali jiray camuud iyo hargeysa universities dhammaan marka golis lagu daro kriteeriyadaas baa la wada marinaya wayna u siman yihiin jaamacaddii buuxisaana isticmaalaysa marka dacaayadaha odhanaya jaamacadda waa la aqoonsiyay lama aqoonsanaa waynu soo aftarana insha allah dhowaan hay-ad baa la sameeyey baarlamaanku ansixiyey NHA la yidhaahdo oo ka shaqayn doonta inay kriteeriyahaas dhisto way wadaan
way gabagabaynayaan sidoo kale dhakhaatiirta la soo saaro waxaa loo samayn doonaa insha allah oo halkaan wadnaa inay laysan qaataan markay internshipka maraan ee shaqada qaranka soo dhammaystaan in marka imtixaan la samayn doono oo laysan uu qaadan doono laysankaas uu ku shaqo geli karo ee aan dhici doonin shacabka soo baxo inuu iska shaqeeyo marka waan dadaalaynaa dhammaan waxaan kii figsanayaa guul ilaahayna kuwii laga faa'iido hayna ka dhigo aad iyo aad iyo aad baan mar labaad ugu hambalyaynaya asalaamu calaykum wasiir saleebaan ciise axmed uu mahadsan wasiirka caafimaadka dr siciid axmed xasan gudoomiyaha jaamacadda golis muddo badan ayuu hamigan ku soo jiray in jaamacad engineering iyo caafimaad iyo weliba agriculture ay ka soo baxaan arday aad u tiro badan 99kii ayuu wasaaradda warfaafinta anigoo agaasimaha waaxda filimada ay soo maray isagoo ku socda geedeeda oo wax ka dhisayay wuxuu waxaan u baahnay inaan ii soo duubo meesha waxaan ku yidhi anaa ku raacaya maadigii xafiiska haystay raacay anaa kuus raacaya maadaama maraykan buu ka yimi markaas ay tiiman filaya maadaama agriculture iyo engineering aad ku hamiyeyso maanta maasha allah siciid dhakhtarka aad baan ugu hambalyaynayaa in arday tirada leh oo dafcadii toddobaadii ay ka baxdo jaamacadda college waxaan u yeerayaa markan wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda somaliland mudane axmed nuur faahiye aad baan anigu ugu faraxsanahay maanta halkan xafladan quruxda badan ee ka soo qayb galeen wujuuhdan qaaliga ah ee uu horkacayo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo isagu mar kasta ku sultan meel kasta oo ummaddan wax loogu qabanayo ama ha ahaato jaamacado la furayo ama ha ahaato wax horumar oo dalka ama dhagax dhigi wax kasta ha ahaatee taagan aad baan ugu faraxsanahay maanta dufcaddan qalin jabinayseed dufcaddii toddobaad sida uu sheegay guddoomiyuhu idin odhan mayno arday waxaan idin leenahay aqoon-yahan baa maanta tihiin maanta dalku wuu idin baahan yahay sidaa uu sheegay raggii laga horreeyey sidaasaa dalkii caafimaadka idinku baahan yahay dowladdii hoose idinku baahan tahay meel walba idinku baahan tahay wasaaraddii maaliyaddu cid waliba idinku baahan tahay maanta aniga farxad bay tahay oo xoghayntaydii baa qalin jabinaysa iyo agaasimo waaxid ka wata agaasimo waaxid oo jendarka haysta aad iyo aad baan u faraxsanahay ma doonayo hadal badan inaan idhaahdo waxaan idin leeyahay hambalyo ayaan idin leeyahay dad badan baa iga dambayn doona madaxweynahana ma doonayo inaynu waqti ka lumino innagu isu soo haraynaa insha allah waxaan u yeelayaa markana duqa caasimada maayarka magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamed caydiin arrintan maanta ka dalajinaysa waxaa ku jira ilaa 8 qof oo shaqaalaha dowladda hoose ah waxaan filayaa in qaybta ugu baahida badan ee ardayda maanta halkan dalajinaysa gaar ahaan jaamacadda golis waxaan filayaa inay dowladda hoose tahay haddayna wasaaradda caafimaadka naga baahan doonay annagu gaar ahaan qaybta injineeriga waan u baahanahay aqoon-yahanka waxaan leeyahay marka ugu horeysa jaamacadda ka soo baxdo kolkaaba inaad shaqo heshaan ku fikiri wato waa inaad waddankaaga wax gashataa waayo waxa ay waddanka inagu soo maray dhalinyaro daa ahaan idinka wadaya 14 jira oo u soo halgamay liigoodu u soo uray maanta idinkana waxa laydinka baahan yahay aqoontiina qofka idinka halkan jaamacad ku dhammaystay wuxuu u dhigmaa 20 qof oon aqoon lahayn marka inaad waddankiina u shaqaysaan annagu dowlad hoose ahaan 2 injineer baa maanta halkan u qalinjabinaya labada meesha kale inaan qaadan inaan halka ka ballan qaadaya oo ka mid ah madaxweynihii baa jooga kolkaa hadal badan waxaa filayaa inay u bannaanaa inta ka dambaysan ka wada hadlo waxaan u yeerayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud aadan sacabka mudane madaxweyne kusoo dhawow dowladdii wilaayadka iyo inaad noogu ducayso بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
دكتور سعيد أحمد حسن قدوميها جامعة جوليس iyo staff ka shaqeeyay mas'uuliyadda la shaqeysa ardayda halka qalin jabisay aad iyo aad baan idin salaamayaa hambaliyo aad u ballaaran waxaan soo jeedinayaa ardayda maanta halka qalin jabisay ayaan leeyahay hambaliyo aad u ballaaran anigoo ku hadlaya magaca qaranka ayaan idin soo jeedinaya hawsha kan halka ka dhacday waa wax weyn waxay dowladdu magac iyo sharaf iyo maamuus u tahay in jaamacadaha noocani ee ardaydaas maanta ka qalin jabinaysa ay yihiin kuwa dalka iyo dadku ay doono ee maalumba ummaddu u baahan tahay ee leadershipka iyo hoggaaminta qaranka ee soo socda insha allahu tacaala ay ka qayb qaadan doonaan noqon doonaana kuwa dalka iyo dadka hoggaamin doona insha allahu tacaala waxaanu leenahay aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay aad baanu ugu faanaynaa waxaana noqon doontaan insha allahu kuwii dalka iyo dadkaba anfaca cilmiga iyo aqoonta aa barateen waa loo baahan yahay dalka iyo dadku aad buu ugu baahan yahay mar walba inta ay dhallinyarada tacliintooda iyo aqoontoodu gaadho ayaa dalka ahaysa mustaqbalkiisu noqonayaan waxaynu u baahan nahay dal xasiloon waxaynu u baahan nahay dal tacliintu sarrayso waxaynu u baahan nahay dad aqoonta isu qira waxaynu u baahan nahay dad nabadgelyada iyo wadajirka iyo horumar ka shaqeeya waxaynu u baahan nahay dad tacliinta iyo aqoonta qiimeeya ayaynu u baahan nahay aynu ummad iyo qaran ku noqon karraa oo aynu dunida aynu maanta ka mid nahay aynu hormuudka meel ka gaari karraa fiican oo aynu madax bannaanideenna aynu tigsanayno insha allah aynu ku gaari karraa marka maanta waxaan leeyahay ardayda halka ka qalin jabisay iyo macallimiintooda iyo istaafkooda iyo madaxdoodaba waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad iyo aad u ballaaran ayaan u soo jeedinayaa waxaan mar labaad idinku leeyahay ilaahay garabkiina ha garo kulligeenba idinkana gaar ahaan iyagana waxay hambalyo aad u ballaaran aad iyo aad baa umahadsan mudane madaxweyne intii aan intaan tegin waxaan jecelahay waxaa kale inala jooga weel banki iyo shahaado sharafyaan siinay oo dhowra BBC iyo Voice of America inaad intaan tegin dheer aad guddoonsiiso wasiiradana waxaan jecelahay inay noo joogaan oo ay ardayda guddoonsiiyaan laba arday oo sidaan sheegay madaxtooyada ka shaqeeyana inaad maaragtay loo guddoonsiiso shahaada waxaan intaan ku darayaa madaxweynihii noo yimid waa yaro qayrooda intii hore inaan sheego oon markhaati kaaga dhago mudane madaxweyne 360 arday oo maanta hortaada soo fadhiya oo warqadan ku dhiibnay liiskii ku jira inay dhammaysteen imtixaanadii iyo assignmentskii iyo wixii laga doonayay waajibaadkii markii ay soo eegeen fakalladoodu kulliyadahoodu ee sanadka jaamacaddana ay soo hordhigeen ee la baasgareeyey ee aanu cuskannay digreetadii jaamacadda golis lagu sameeyey ee wasiirkii tacliinta ee hore xasan xaaji maxamuud warsame oo halkaa fadhiya uu noo qoray lagu ansixiyey jaamacadda golis iyo qodobadii dastuurka jamhuuriyadda somalilan ee sheegayay ka warramayey tacliinta intaaba markaanu cuskannay waxaan halkan ka caddaynayaa inay ardayda 363 digrigii bachelorka dhammeeyeen shahaadadoodiina wasiiradu ay imika guddoonsiinayaan 725 ay dhammeeyeen dibloomihii laakiin madashu aanay ina qaadayn 1880 iyo waalidkooda intaasoo dhan aanu iyaka nidhi soo doonta markaa intaana markhaatibaan kaaga dhigayaa mudane madaxweyne mar labaad waxaan leenahay hambalyo qalin jabintiinii dastuurkan waa bajinnay qawaanintii wasaaradda tacliinta iyo tacliinta sare somaliland ayaan waafajinnay hay-adda national commission for higher education baan waafajinnay macallimiintiinnii idinka saxay imtixaanada ayaan waafajinnay waa ka soo gudubteen inkastoo soo tacabteen hambalyo 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 inta shahaadaha iyo noo bixiyay mudane madaxweyne business bank waxaa u baahaya weelmanka iyo soo dhawaad waxaan ku siinay lacag malaayiina ayaa la siiyey private sectorka jamhuuriyadda somaliland oo kor u soo qaaday oo ay jaamacadda goliska ka mid tahay
Dennis. How are you doing? Yes. Dennis, Robert, this is for you also. Tana, we are giving this for you. That's for Somalia. This is for you. Yes. Chief Hassan Ashiri, the chief of Ugama, Abu Musari, the Watomaku Ugaway, Euro Million, 11 million, 7 million Ukano, or no, a million or 1 piece of except over by the city of Jamaica, the risk is not a bit by this. Hussein Bartero, also America, Zero Example or Masolana, the Latin Pakistan, after the war. Muslim League also is missionary or Somaliland